dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya soo macin biday si la mid ah dhalinyarada kale ee ku nool dalkii hooyo waxa saameeyay nolosha adag ee guurka iyadoo ay u sii dheer tahay nolosha Kenya oo ah mid adag in kasto dhalinyarada qaar ay sheegayaan arrimo badan oo sabab u noqday in dhalinyaro badan ay iska daayaan guurka marka sabab badan keenan sabab waxa kamid ah gabdhaha qaar waxa way waxay jecelin horta ragga horta lacagta leh aniga horta gaalana dadkaan dhalinyarta xageeda waxaan dhihi lahaa maanta dhalinyarta ayaga qaldan cause hadda gabar nolol aan rabin ma dhihi karo maanta nolol gabar ma rabto dumarka Nairobi iyo ragga Nairobi waxa waa marka hore markay isguursanayaan guurkooda ma ila ahan dhab kaas waxa waa qurba la jooga dhibaato iska jirto de wax ku meel gaar la yaraa ayay sameeyaan inta badan markan maxaa la sameeynaa dhalinyarada anigana 100 iyo 100 ay shukaansana waxay ku dhahaan aniga adig kala ku shukaansana qof kale ma shukaansano way dhalinyarada horta adduunka joogta hadda tan horta lama aamini karo way ayagana waxay leeyihiin gabdhaha lama aamini karo ayagana anigana waxa leeyahay lama aamini karo dhalinyarada dibka xigta waa midaas waa daayar isku dan iyo hadaf ah badankood dhalinyarada maanta haddana mid walba ahi oo midka kale si uu eedeynayo marka aad eegto xagga nolosha balse aan xaqiiqda isugu sheekaynin oo aan dareensanayn inay isku yool yihiin bas hal lidraade noloshayda qof hadaan isku wadaagno ilaa xiriirku waqti dhamaado waqtigu si dhamaana waxaana waa dumar 40 sano lagu toogasa hadaa maanta raadee soo diyaar haduu diido waxaan isku keenay waa qalad bari waa ka tilaabsanaa nolosha nolol kala aada gabdhaha marka la shaqaysanayso waxay ku leedahay xabada waan la socoto gabar kun ay shoorisa haaleen kala dhex baxdaa adii maska xanuunkaas marka uma adkaysi kartid marka adeer maama cadar oo ku nool xaafadda Eastligh ee magaalada Nairobi waxa ay u soo joogtay waayo badan dhismaha reeraha maanta iyo reerihii hore iyadoo aan wax ka weydiiyay halka ay dhibtu ka taagan tahay oo gabdhaha iyo wiilashu ay isla garan laayeen haddana waxaan u arkaa iimaan la'aan inay jirto sababtoo tahay gabadhii waxaan guursadaan waayay wiilkiina waxaan guursadaan waayay waa iimaan la'aan baa la dhihi karaa eedeymaha iyo dhaliilaha ay dhalinyarada labada dhinac ay isku hayaan haddana ma jirtaa wax xal u noqon kara caqabadaha haysta oo ay hayaan si looga gudbo dhibta ka dhex taagan dhalinyarada isla markaana ay kaga baxaan nolosha adag ee kelinimada ninka qoyskiisa ku filaanaya hadduu subaxdii shaqo aadayo oo shaqo soo sameeyo oo intuu caaw soo helo oo cuni kara qofka waxa la dhahay qofka wixii hal qof ku filnaa laba qof way ku filan yihiin xalku wuxuu noqon karaa inay raggu qayaalada ka dhaafaan dumarka wiilasha yaryarka ah oo shaatiyo soo cadeysana inay gabdhaha beenta ka daayaan gabdhaha masaakiinta gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho sharaf leh